السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada waa sheeko aad iyo aad u xiiso badan aad iyo aad dareen gooniyo wadata waa daacadnimadii u dulaysa sheekada lagu magacaaba waxayna qisadu ku bilaaban doontaa sida tan waxay ahayd maalin aan aad u mashquul badanahay sababtoo ah waxay maalintii ugu horeysay jaamacadda kadib anigoo u socdo xafiiska ayaa waxaan isjiidnay wiil ma arkaynin kadib si cadho leh ayaan ugu idhi maad indha la'dahay markaas ayuu igu jawaab celiyay isdaji kadib hadal kale uma celinay hore ayaan isaga sii socday waa dareemi kartaa maalinta ugu horeysay ee jaamacadda shucuurtaada kadib hawshii ayaan soo dhameystay xaafadda ayaan iska tegay maalintii labaad aniga oo ka soo baxaya galaaska ayaa wiilkii iga soo horbaxay wuuna salaamay assalaamu calaykum waan ka qaaday salaantii kadib maalintii jawiga ma la qabsatay igu dhahay shalay waad aad iyo aad u cadhaysnayd waxaan weydiiyey yaa kuu sheegay waxa uu igu dhahay waa wiilkaad isjiidayseen qalbigayga waa maqnaa maalinkaas sababtoo ah waa dareemi kartaa qofka maxaan ku sheegay markuu uu ku cusub yahay jaamacadda oo ayaan ku dhahay ma fiirsan walaal wajigaaga waxa uu kadib iga codsaday telefoon lambarkayga waa uu soo wacay laakiin kama qaban waxaanan ku dhageysto maalmo badan habeenkii dambe ayaan ka qabtay waana dareemi kartaa marmarsiinyaha dumarka waxaan ku qanciyay in aan mashquul ahaa kadib iswareysi wuxuu ii sheegay in uuna joogin magaalada laakiin uu maalmahaas u jooga jaamacadda hawlo wuxuuna ka yimid magaalo kale tan aan jooga mahane waxay sidii ahaato marna aan ka qabto marna aan ku dhageysto waxaan ka yaabay madaalo ma quusto habeenada kamid ah ayuu ii soo bandhigtay xidhiir kadib waan ka diiday sababtoo ah marka aan jaamacadda bilaabay nin lama socon ka horna lama socon wax xidhiirana igamay filin faamilku waxaana ahaa qof aad iyo aad waxbarashada ugu wanaagsan waxay maalmuhu isguraanba ma quusanin waa nin aniga la isoo diray ayaad moodaa waxa anigiina galay dareen naxariis leh kadib waxaan ka aqbalay xiriirkii waxaad moodaa hadalka macaankiisa iyo sida uu markasta daqiiqad kasta inuu aniga la isoo dirayba inuu ii bedelo waxaan noqonay dad isfahmo wallahi waxaad moodaa masjeesyada koolka sida iga warhayo waalidkayga oo kale aniga qalbigii waa siiyay waad ogtahay dumarka waa wada naxariis waxay sidii ahaataba laba qof oo isu hura nafta ayaa noqonay sanadkii labaad jaamacadda ayaan galay isagana sanadkii ugu dambeeyay oo 2 sano ayuu iga horeeyay jaamacadda waxay noo ahayd xiisa gaar ah iyo nolol qurux badan isaga lama noolayn qoyskiisa waxa uu la noolaa ayeeyadii oo soo korisay iyo eedooyinkii laakiin aniga xaafadda aniga ayaa ugu yaraa hooyo iyo wiil kale oo aan walaalanahay mooye inta kale dabadda ayay ku maqnaayeen waxa dhacday waxba kama hagran jirin $5 haddaan helo hal ayaan kala hadhi jiray inta kale waan u diri jiray waayo waxa uu ka caban jiray eedooyinkii aniga waxaan odhan jiray inta garabkaaga aan ahay hawalwalin shoppingka waan u diri jiray telka uu ku hadlo anaa free uga dhigay bishii ayaan u soo furi jiray yacni waxaan u ahaa daacad waana markii iigu horeysay ee aan nin jeclaado waxaad moodaa ninkani in uu isixray sida uu qalbiga iga xaday waxa ay sidii ahaataba waxaan isdhahay in wuxuu idhahay waan tahriibayaa aniga qalbiga ayaan ku ooyaa maxaa ku haya jaamacadda dhamee waynu wada shaqaysanaynaa wadanka iska aamin kulaha waxaan rabaa intaas oo lacag ah kuwan aan la joogo aan la noolahay ima siinayaan aniga la soo booda soo aniga kuma jooga haye ee kulaha ii soo dir marmarsiinyo lacag inta uu rabo waan u diraa si aan hooyo ama walaalahay kaga qaadaba waayo naag masuula ayaa laygu ogyahay waxa uu idhaho waa rabaa maya lama dhahayo kadib sidii waxay igu biiray fikir lacag joogto ah shopping soo iibi waxba noloshayda kuma soo biiriyo shilinka aan helo isaga ayaan u diraa fadlan waxaad la socon kartaa qaybta kale ee sheekadan hadda waxaynu soo gabagabeynay waa qaybta koobaad waxaana la socon kartaa qaybta labaad tan iyo intaynu ku kulmi doono qaybta ku xigta ee labaad sida ay nabadgeliyo